maxamuud axmed booldheri waxa meel uu ka halacsaday qalanjo bas ka soo degaysay oo u soo adeegtay reerkooda goor barqa ahayd wakhtigaasi waxa uu la joogay wiilal ay saaxiib ahaayeen qalbigiisa waxa soo jiitay muuqa qof aanu hore u arag waxa uu holladay inuu la hadlo gabadhoo la socotay habla kale laakiinse uga tilmaanayd hablay la socotay laba hablood bay ahaayeen markaa runtii horta markii ugu horeysay aniga horta ma oran karo waa ku jeclaaday laakiin dareenkii ugu horeeyay meeshii ka bilaabmay ayaa waxaad aragtideedii koobaad iyadoo ina kale ay wada socdeen magaranaysa markiiba iyadoo ay soo jiidatay indhaha waxaan isku baranay maalmaha ka mid anigoo meel dariiqan joogna anaga dhowr dhalinyaro saddexan ka koobnayn ayaan soo martay iyadoo xilligan ay dumarku had iyo jeer adeegga soo doonaan hablaha yaryar iyadoo saribada ka soo noqotay markaas deedna iyadoo saribada ka soo noqotay halkaa ku aragnay markaa dhalinyaradii kaftan iyo hadalii isku tuurtuur ayaan anu kula hadlay sidii baan horta halkaas barashadeedii koobaad ka bilaabmatay kadibna markii halkaan kula hadlay magaceedii iyo waxaankaas is weydiinay aduu xoogaa siyadee isadkeyntii yar dumarka kadib waan magaceedii iyo dee waan macluumaadkeedii sidii bay sheegtay halkaas barashadii ka bilaabantay magaalada waxay Hargeysa gaar ahaan degmada maxamed mooge xaafadda maxamed mooge marka halkaas ay saribada bartay iyadoo adeeg ka soo doontay kadib ka soo noqotay baan halkaas ku baranay marka halkaas ku baranay macluumaad kadib halkaas barashada horta ka bilaabantay haddii uu ka daba dhaqaaqay gabadha maxaa uu kala kulmay run ahaantii xiriirkaygu dee markii horta isbarasho keliya ahayd dee telefoonka la qaadashay iyo wax noocaasa intii ugu horreysaan is aragnay waxaan dareemay dareen farxadeed waxaan ka yimideen suuqa baskan ka soo degay waxaan ku kulannay halkaa star aniga waxaan ahay laba hablood oo kale maalintaas dee sidii la isku baran jiray maan isku baranno inaan isku baran jiray isagana meel la socday oo iga daba yimaadeen kadibna waxaan kala qornay lambarka maalmo kadib waxa bilaabmay jacayl curdina dee halkaa ka bilaabmo inkastoo iska adayg iyo dee xaalado mararka qaar oo meel dee adayga gaadhayay laakiin waxay ahayd dee mid markiiba horta igu dhalisay dareenka inkastoo aanan ku jeclaanin aragtida maxamuud booldheri oo durba jacaylku u saaqay waxa uu bilaabay in ifraax uu qoro fariimo jacayl oo uga dirayay telefoonka gacanta fariintii ugu horreysay aan u diray runtii waxay ahayd maalintii aan adigu dhowr cisho isnaqaanay fariintii ugu horreysay aan u diray message ugu qoray waxay ahayd in anigu aan u gudbiyey dareenkayga jacaylkayga dhammaystiran ereyadii runaantii waan iska helo jacayl baan ahay waxaan u qoray dee waan ku jecelahay xabiibi aad baan kugu jecelahay markasta waxaan jecelahay inaan ku arko run ahaantii wada cajabisay iyo qaar kaloo dee aad u badan oo adigu dee jacaylkaasuna marba marka dambaysan aad moodayso inay dee ereygeedu sii kordhayo inay sii macaananeyd iyadu sidee ayay uga falcelisay mawjadaha fariimaha ahaa ee uga imanayay gacaliyaheeda cusbaa masajka markuu ii soo diray dee aniguna dareenkaygu baan u sheegay dee waan ku jecel markuu ii soo diray sidoo kale waxaa la kordhiyey wakhtigii la wadaagi jiray muxubbada kalgacalka waxaana la isarkaa mar walba oo wakhti la helo mid walbana dhankiisa ayuu hareerta hayaa waxa dhacday waan maalmihiisaan isku baranay xiriirkii adugu soo yaro kordhay marba mar ka dambaysa waan dee muddo waan arki jirnay inta badanna dee telefoonada way iska adkaayeen inta badan aad looma isticmaali jirin inta badan waxaan ku ballami jirnay wakhtiga ama ayaamaha maalinta iblaahay soo gelayso habeenka 7 saacad noocaas oo kala saacadaasaan isugu iman jirnay saacada marka isugu nimaadno habeenka marka halkaas saacada isku kulno inta badan soo telefoonkii dhalinyaro iska noo mid walba ama waqtigeeda qaar aanu waqtiga ku saamaxayna dee kala hadasho inaan saa ugu wadnay markii dambe waxaan marba marka dambaysa dareemay inaan dad dee barashadoodii iyo xiriirkoodii adkaaday oo marba marka dambaysa marxaladii hore ee ka gudbayo xaalku aad moodayso inuu kasii yarduwanaanayo xiisiisii badanayo marba marka dambaysa ay wax sii bedelayaan kadibna waan halkii baanu dee ay barashadii markay muddo xoogaysatay aan muddo aan wadnay waxa dhacday markaa inaan
dee waqtigiina xilliba markaa time ay gaadhay muddo xoogaa ay gaadhay kadib markaa dhacdayna ballantaydii halkeenu toddobaadkii maalin iska iman jirnay inaan kordhinay aan isugu iman jirnay toddobaadkii 2 cisho markii dambe aan haddana sii kordhinay toddobaadkii 3 cisho ilaa markay gaadhay toddobaadkii habeen dhaaf aan isugu iman jirnay markii aan habeen dhaafka isugu iman jirnay kadib marba marka dambe waxa dareemi kartaa in jacaylku aanad adigu ogeyn laakiin uu wax jiraan waxa dhacday inaan markii ugu dambeysay waxaan isku iman jirnay habeen walba. maxamuud oo farshaxanka sawirada ku fiicnaa waxa uu Ifraax u diraa waraaqo lagu xardhay wadnayaal isu heshanaya iyo indha ay ka burqanayso ilinta caashaqu. hadii jeer anigu waxaan aad si aadaan ugu wanaagsan xagga farshaxanka ama sawirada wadnayaasha iyo waxyaabahaas aan ugu fiicnaa ama qoraalka xagga qoraalka warqadaha. marka hadii jeer anigu waxaan iska jeclaysan jiray mar walba inaan qoraalo warqadahan qurux badan aan u geeyo ama fariimo oo jacayl ay ku qoran yihiin warqadahaas oo midabo kala duwan iyo marka kolba waqti walbaan xilliga firaaqadahay marka qaar wax sameyn jiray xataa ama sawir ay leedahay ku sawiri jiray warqadaha markaasan waxay ku sawiri jiray markaasan u geyn jiray adoo siistamana marka aan fahansanayo gaaraaban ugu sawiri jiray sawirkeeda sasan ugu diri jiray marka fariimaha warqadaha noon isticmaal jiray marka waxa sameyn jiray markan ubaxyada ka tago wadnayaasha waxaan jiri jiray 3 wadne oo saaran hal wadno oo dhameystiran mid yar ka saaran mid ka saaran warana dhexda uu ka dhex baxayo liid yar oo markaa adu ilmo ama dhiig oo kale xagga hoose uga daayo. maxaa kugu weehday oo waraaqo jacayl ah qoray maxaa wadnayaal sawiray maxaa weedhaha kalgacal marwaaweyn kugu dhigay. laakiin Ifraax iyadu ma laha hibadiisa oo kale waxay kaga jawaabtaa inay sidaasi oo kale u jeceshahay dareen bay ku sii dhalin jiraan oo jacayl. waqtigani waxa la gaadhay in la qorsheeyo nolol aan la odorosi karin sida ay suurtagal u noqon doonto waxaana lagu jiray habeenna iyo maalmo farxad lahaa. waxaan isku dayay bal inaan gabadhii helayo jacaylkaygii waan haystaa bal inaan hadaba tacbo oo wixii aan ku kasban lahaa ama ku doonan lahaa aan doono. waxa uu bilaabay inuu aad u shaqeeyo shaqadii baan bilaabay oo una sababna wahayd inaan jacaylkaygiisaan helaysaan ugu guuleysan lahaa u dhammaystiran lahaa dabeedna shaqadii ugu horreysaan bilaabay waxaan ka shaqayn jiray farsamada gacanta gaar ahaan dawaarka. shaqadaasaan bilaabay dawaarka oo qaybta dalaayadahan waaweyn ee la harsado shaqadaasaan ku bilaabay oo xilliga shaqo aad u wanaagsan oo qaali ahayd ayaan ka bilaabay. muddana waan shaqeeyay waliba xilliga intii aan jacaylkayga anigoo wada markii aan helay shaqadii aan bilaabay ee farsamadan oo aan bartay aan ku shaqadii ku bilaabay waxa ii sahashay horta inaan moral badan helo marka warwarkii xoogaa iga yaraado marka aan ka fikiro barsan wuxuu kasban lahaa iyo san qarashaadkii iyo noloshii. hadda markiiba horta aan ka guurayba waxaan ka guuray dhalinyarmadii waxaan guuray xaalad kale oo ah maskaxdii qalbiga waayeelnimo iyo mas'uuliyad ayaan guuray. marka mas'uuliyaddii kadib halkaa shaqadii waan iska bilaabay waan shaqeeyay adoo hiigsigaygu wuxuu ahaa inantii aan jacaylka bilownay sidii aan reerkoodii iyo ehelkoodii iyo waalidkii aan uga doonan lahaa wixii aan ku doonan lahaana waa doctor runtii magaaladeenna Hargeysa ama Somaliland dhamaan ahaan gebi ahaanba aad buu kharashku u badayay marba marka dambaysa xilliyada waliba xilliga aad buu badnaa kharashku maadaama anigoo kharashka u badayay mar walba wixii aad haysay inaan kasii kordhiyo oon higsigu yahay wax ururin iyo suuqeyn iyo inaad wixii kobciso oo wixii aad dad ula iman lahayd aan tacbay. inantu dhankeeda waxay isu diyaarisay inay noqoto marwada wiilka jacaylkiisu maasheeyay qalbigeeda. maxamuud jawiga caashaqee uu galay waxa uu la wadaagay saaxiibadii laakiin waa ay la yaabi jireen sida uu sheegayo Maxamuud Cabdi Qiyaas. dadka waxa u qaybsanayeen wax la yaaba ninkaasi markuu garanaysa ka sheekeynayo arrimaha inantaas iyo wax magaranaysa arrinkiisa soo dhaweeya. anagu maadaama saaxiib aad u dhow ahayn waqtiga oo dhan intaanu ka wada sheekaysanayno dadku waxyaabo kale isagu wuxuu iga sheekeyn jiray
halkay kolba xaalkoodu marayo de waad garan kartaa dee dhalinyaradu asxaabo sheekadii mar walba jacaylun inaad marka qaarkood yara karaysanayso ninkan mid wax kaleba horta kaaga sheekaynahayn marka dee may ahayn aqoon darro xagga jacaylka laakiin waxay ahayd annagoo labadeedu isku xaalad dareemahayn inantaasi way sooyaal bay soo wada qaateen riyadii la hiigsanayay ee loo qalab qaatay ayaa markani lagu hungoobay maxamuud waxa uu maqlay war naxdin leh oo wadnihiisa gilgilay waxaa loo sheegay in duulaan uu ku soo fool leeyahay kalgacalkii hadh iyo habeenba uu ku howlanaa sidii uga midha dhalin lahaa horta dee annagoo sidii meel wanaagsan xaaladdu marayso waxaan ku yidhi dee cirkii dhulka dhexdooda joogno waxaan ku yidhi meel ka macaanba hawada sare hawada jacaylka ku dhex jirnaa ayay mar keliya ayay xaaladdu isbedeshay runtii markaa waxaad dareemi kartaa adigoo maanta diyaarad saarno marka lagu dhaha diyaaraddii way xumaatay hawada sarena aad marayso naxdinta aad dareemi karto iyo culayska iyo dhibaatada aad dareemi karto ayaad joogaa markaad ku jirtay ee joogiisu kaa bedelo ayaad dareemaysaa waxaa jirtay markaa maalmo ka mida baa waxaa dhacday anigoo meel jooga oo iska xaalkaygu iska okay yahay ay nin baa ila soo hadleen oo saaxiibnahay ninkii baa waxa uu sheegay arrin markaas ninkii wuxuu ii sheegay in inantii iyada ahayd ee ifraax ahayd ee xaaladdiin meesha wanaagsan maraysay inay hawl kale soo kordhay xaafaddii oo barnaamij kale la wado oo ma garanaysaa sheeko noocaas oo isagu markaa uu soo maqlay runtii markaa horta markiiba aniga mooralkaygii iyo farxaddaydii iyo joogaygii ayaa si aada isu bedelay waxaa kaaga daran intaasoo keliya bedel keliya maahee waxaan garanaya maalintii waan la hadlay iyadii baan weydiiyey waxaan ku uri ka waran xaaladda maxaa ka jira warka caynkaas iyo caynkaas in lagu soo doonayo oo xaafaddii arrintaasi jirto niyo waan maqlay bay tiri laakiin waxaan aaminsanayo inuu jiraan u malaynayo maaha markaas waxaan dareemay markiiba anigu isbedel waan si wanaagsan baan xusuustaa maalmaha maalintii lay sheegay dhowr cisho xataa cunto cabitaan waxaasoo dhan maan cunin taasoo xaafaddii xataa markii dambe xaafaddii iyo waalidkii ay dhibaato arkeen oo ilaa waaba yidhi war meed xanuunsanaysaa kula aba meed xanuunsanaya iska maadaama cuntadii baan cuni waayey marka horta halkaas ayay dee wixii isku bedeshay oo arrintii noqotay weji kale arrintii waan wadaagnay iyadana waan u sheegay markaan u sheegay waxaan ku arrintaa maxaa ka jira wallahi arrintaas waan maqlay laakiin wax jira oo saxa uma malaynayo laakiin ilaa markii dambe ay dhabowday oo dee wixii ma garanaysaa iyadu way u qaadan lahayd laakiin markii dambe ay dhabowday oo dhab noqotay arrintii noqotay in reerkoodii laga soo doonto sidii dhaqanku ahaa dee sidii markii ay arrintu halkaa maraysana ay markii dambe iyadu ay anigiiba go-aan ii soo goysay dee kolley waa markuu sida dee caadadaynoo ah ama dhaqankeennaba inta badan ah dee inanta waalidkeedun baa bixiya ama dee qofku markuu isagaa dee qof weyne oo tashana ama waalidkeeda bixiya may run ahaantii dhaqanka soomaalidu markii hore iyo toddoba toona jacayl ma tixgeliyo inta badan inanta mustaqbalkeeda iyo aayaheeda laga fikiraa qofkaasi jeebkiisa laga fikiraa yacni dee maanta markaad inantii waalidkii ka soo doonay labada qof wuu miisaamayaa kan iyo kan markaad haddii inantii kolley dad badan baa soo doonan karaa marka qofku wuu miisaamayaa mar walba wuxuu eegaya inanta halkii u wanaagsan marka haddii dhalinyaro imika wax shaqo fiican haysan wax fiican haysan iyo kolley qof kale dee ma tartami karayaan haddii ifraax loo diyaariyey guuraan jacayl ku iman maxay ahayd talada ay ula tagtay maxamuud wakhtigaa uu madaxiisu hoos u laalaaday sheekada uu faham lagu keenay bahayd kadibna waan ka tallaabsan kari waayey aduu waalidka xaggiisay ka timid aniguna waxaan markaa jeclaa maxamuudna waan u sheegay waxaan dee ka tallaabsan kari weynaa ay noqoto aniga inan kala wada soconna ayaa u tagnay maxamuud kadibna waan u sheegay inay dee sheekadaasi jirto xagga faamligana ay ka timid kadibna maxamuud uu iska dhayalsaday waxaan u sheegay markii dambe inaanu jacayl jirin oo wixii horena ay ahaayeen matalaada markii go-aan bay soo gaadhay waxay ugu tiriyeen maxamuudo waxaa jira arrin saas ah arrinkaasina waa dhab berri toolna hawshii
dee fadhiiskeeda hawsheedii in la dhameeyo ayaa la doonaya. go-aankayguna waxa weeyaan soo gaadhay inaan dee ku imaado. markaa waaye ii kaale baan ku yidhi. markaa anoo goobtaydii shaqada joogayay waxaa ii timi iyada iyo inan kale oo saaxiib ahaayeen iyagoo wada socda. runaantii markaa dee anagu talo kale oon isku sii wada tashanay ama aan sii tashaday ama aan kasii wada tashanay may jirin. markaa sikadiisun bay igu timi iyadoo xilligaa shantadeedii sidata ayay ii timi. markii halkaa igu timi runtii arrintii dee kadis go-aankeeduna dee markaa uu yahay sidii dee meeshii jacaylkii aan ula baxsanayn ama meel kale aanu dee ugu guuri lahayn. runtii anigana maan u diyaarsanayn. wixii kadiisun bay iga noqdeen. meeshan ka shaqaynay goobtu bay igu timi si kadiisa igu noqotay. wixii fikriya waqti kamaan fikirin oo maan dee aada ugamaan fikirin. laakiin waxaan sameeyey inaan baanu saaxiibna ila joogay inankii baan in yar la yar tashaday. marka aniga go-aan baa markii horta maskaxda kusoo dhacayay. waxay soo dhacayay markaa inantan balan kaxeeyo oo aan geeyo islaani habarro xagga geedeeble degan magaalada tuulada geedeeble. qorshahaasaa markii maskaxda soo galay. laakiin ninkii saaxiibkaa marka la tashaday wuxuu igu qanciyey inuu inantan aan iska noqoto arrintana mar kale inta laga fikiro si wanaagsan looga tashado. anna marka raygii kii kale waxaan ka qaatay inay malaha wanaagsantay inaan waqti fiican oon dekadis ahayn aanu ma garanaysa markaan wada sheekaysano oon dib maanta markaa u dhigano. iyadana waxaabay ka taagantay xaaladdu waa halkii ugu dambeysay. dabeedna sidii inantii ayaan ku soo celiyey iyadoo cadhaysan bay markii halkaas iga soo noqotay. gabadha ay sheegayaan maxamuud iyo ifraax ee goobjoogga ka ahayd go'aan qaadashadii ugu dambaysay waxa weeye Hooda Maxamuud Garays. habeenada ka mid ah ayuu Maxamuud dhibaato aad u badan baa adigu maray igu yiri ifraax u yeedh. ifraax baan balanay. ifraaxna waan u yeedhay waan isu nimid dabeetana ifraax waxay tiri reerkaygu arrinkaa uu gaadhay go'aanka hadduu qaatayna kama noqonayaan. hawshiina waa xilligaa markaas intaanay hawshaasiba dhicin aynu guur masaafo ah samayno. runtii anna waan ku raaco dee xiisada arrinka ka ahaa. dabeetana waxaan isla raacaba Maxamuud sababo markaa jiray dartood iyo inuu daragu dumarka hoggaanu yahay oo uu ka fiiro dheer yahay ama ka fikir badan yahay oo waxa markaa ku xeeran iyo xididnimada iyo sidee waalidka hadhow la isku noqon doono iyo wax badan eegay. cabaar markuu soconay buu hawshaa kuma dhaqaaqayn. waa hagaag habeenkii waanu la qaadanay. taasi ifraax waxay gelisay tuhun ah inaan ninkan u jeceshahay u jeclaan. erebay tiro telefoonka iga soo taxay tuniyo waliyaana ima jeclaanin anu baa ku jeclaa daymana jeclaanin anu baa ku jeclaa abidna ima jeclaanin. markaas dee nabadgelyo anigana saasaynu ku kala dhamaanay maadaama intaas soo sanadood aan wada soconay maantana aad halka iga soo celisay. runtii markaa anigana ay la xumaatay oo ila dee ma garanaysa markii dambe ee taladii go'aankii aan qaatay meena ka soo celiyana aan lahayn. isla markaa iyadna gurigoodii ku laabatay. hawshii markii hore ay diidanaydna sidii bay ku aqbashay iyo ogolaanshinkii iyo wixii ay diidanayd anigana iyadoo iga soo qaaday markaa inaanan aslanba marka horeba qof wax jacayl u hayay aanan ahayn. talaacayn wareegtana la isku maacana talaacayn wareegtana la isku maacana caqli iyo hubsiina idhib looga ayaa cidna eersan maaye markani ifraax waa la guursaday waxaanay noqotay afada nin calafku u dabray. waxa dhacday adoo inuu dhacayn meherka inuu dhacay kadibna anuu rajo dhigay inaan iska ogolaaday markaa meherka saa ku dhacay. jaallaheedii Maxamuud waxa jiif iyo joogba u diiday cishqigii lagaga hayaamay
waxa laga jawaabi waayey telefoonno iyo fariimo uu diray. intaa kadib waxa dhacay in telefoonkiiga qaban weydo, in meel walbaan ka garaaco iga qaban weydo, inay igu dhigto, in mararka qaar qof kale igu dhiibto, in ay ma garanaysaa message-yada aanu diraan iga jawaabin. deena xaaladii marka ay noqotay xaaladii marnaba aan caadi ahayn oo isbedel oo aan caadi ahayn oo dhacay. habeenkii maalintii markaan saaha kadib waxaan markaa warkii igu soo gaadhay in inantii iyada ahayd hawsheedii markaa ninkii la siiyey oo sheekadii dhamaatay. maxamuud wuu ila soo hadli jiray laakiin telefoonka ma qaban jirin anigoo cadhaysanaa wadeen. waxay aamintay in been uu la jilayay iyadoo tala ay ku caddaatay, laakiin uu doonayo in maruun ay rumaysato jacaylkii uu calafku ka adeegay ayaa waxa warqad uu ku qoray dhiig uu ka shubay gacantiisa. ma garaacayn inaan dee ama la haasaabo ama la sheekaysto, balse keliya waxaan u garaacayay in ereyga keliyaan dooni ahayd inaan ku qanciyo inaan jecelayn bes, oo ereygii ay beensatay ay rumaysan weyday dee qadarkii ama dee sida go-aankii aan qaatay iyaduna u fahantay qaladka inuu dee aanan ma garanaysaa jeclayn inaan jecelay oo keliya inaan u rumeeyo oo keliya intaasaan doonayaan. markii dambe waxaa dhacday inaan sidii dee aan muddo waxay socotaba markii dambe aan aad u fikiraan sidii talow maxaad inantan bal horta kusoo jeedisaa. markaa waxaa dhacday maalin maalmaha ka mid a baan inaan saaxiibnimo baan u tegey, dabeedna ninka saaxiibkeen baan kulniyo anigoo dhiig baan irbad baa soo jeediyey tirisheer, deedna oo dhiig iska qaadis ayaan booy arkay, deedna si war aan kaa qaado dhiiga. dabeedna markaasaan ku uri waayahee iga qaad, dhiiggii iga qaaday. markaa laakiin ujeedadeedu dhiigeen isagu markaa dhiig xididka jirkaaga xididka jirka irbad caadi tirish uu saa uga qaaday. tirishkii markuu soo buuxiyey waxaan markaa anigu waa doonayay, isagu xilligaa warqa ma fahansanayn, laakiin markii dambe uu ila fahmay waxaan doonayay inaan markaa aan warqadu ku qoro. markaa kadib waxaan sameeyey warqadii baan soo qaatay, inankii baan ka imi, dhiiggii baan ku qoray warqadii. markaa hadii jeer markaa de qoraalkii warqadii aad saa ugu qorto dhiiggii inta badan qoraaladii inkastoo saa u kala hooshoosaysiiya haddana isku soo hordhawaadeen. markaa akhrintii waxma inta badanee hore mooyaane akhrintii waxaasaa isku yar dardarsamay u yaryaraaday. dabeedna anigana ujeedadii hadafkayga waxay ahayd bal inaan mar keliya soo jeediyo ama aan u caddeeyo in aan inantan jecelahay wixii aan weliga uga sheekeynayna aanay been ahayn, laakiin xilligaa wax rajaa ama waxaan ka damco aan ka lahaa haba yaraatay aanay jirin. waxaana ay ahayd fariintii ugu dambaysay ee ugu sheegayo inuu jeclaa. warqaddii lagu qoray dhiigga la hoorshay ayaa gaadhay Ifraax. waxaa dhacday inuu message ii soo dhacay kadib markaan akhriyey aan bannaanka u baxay. waxaan arkay warqadda dhiigga ku qoran bannaanka taalay, hablo badan baa ila jooga asxaabtayda. kadibna waan soo qaaday, adugan xaqiiqsan weyn inay dhiig tahay. markii dambe inan ka mid a hablii baa ursatay oo aragtay. marka aanu dareenkaygu isbedelay, aadna runtii waan u ooyey. markaasumaan xaqiiqsaday inuu jecel jiro. maxamuud wuxuu sameeyey inuu dhiig iska qaado oo jirkiisii jarjaro oo Ifraax ku xardho oo wadnayaal sawiro oo dhiig intuu shilishay iskaga qaado waraaqa ku soo qoro. dabeetana wiil Cabdiraxmaan la odhan jiray ayuu soo faray, uu ku yidhi hoodo telefoonna ma haysana dhammaantay. marka hoodo waxaad ku tiraahdaa furiyeen warqad baan halkaa dhigay saaxiibadaa uga saar. Ifraax inta joojin bay samaysay waqti xaadirkaas, waayo kumay calooladkeyn guurkan oo kumanay faraxsanayn. noloshii kale ay ku faraxsanaydna waa kanoo inankii sidii ay iyadu wax u rabtay waxba noogumay suurtagelin. dabeetana wuxuu sameeyey in warqadda ay soo tilmaamo. warqaddii baa la ii sheegay geedka jacaylka la yidhaahdaa. meeshii in la dhisay kala ma garanayo, xaafadi ma maro, laakiin markaan iskuulka kusii soconaan sii mari jirnay. geedkii markii la ii sheegay ayaan aniga hoodaa Ifraax iyo inan kaloo la joogtay u tegey. markaasaan ku iri inankeenoo sidii wax waddada marayaan iska dhignay. aniguna warqaddii meesha waan ku ogaa waa lay tilmaamay.
dabeetana markaasaan ku dhaala meesha warqad baa ku jirto waa meelihii adigii maxamed waraaqaha jacaylka ay isu dhigi jirteen intaan laga ma eegnaa ifraax iyadoo aad uga cagajiidayso shaki badani ka galay jacaylka maxamuud dhinacan xaafadana welwel kaga furan yahay oo aan qof guurkeedana ku faraxsan jacaylkeediina ku dhisnaynoon haynina ayay tiri hay aynu eegno warqadii baa la soo qaaday dabeetana iyadii inantii kale way iga hor yimaadeen indhiig ma habay yiraahdeen dabeetana anigu waxaan ku waa dhiig waan hubaa qof inoo geeyay soo minhiin labiya mid ha saddex bayna inagu walaal saddexdeena weli wada aragnay warqadan qof afraad inoo keena oo eega dabeetana inan baan tusnay inantii baa san ka saartay wardaa liidada inantaas xaqiijiso tiri waa dhiig dabeetana ifraax aad bay moraal jabtay hawshin way soo guda gashay already meherkii wuu dhacay si fudud oo markiiba oo wareejin ahna waa la sameeyay oo runtii ifraax ninka doonayna markaa wuxuu ahaa denin aad u ladan ma sha Allah markaa hawshiisiba hore ayuu iska raacsaday guur uma ahayna guur de sidii hay loo fuliyo lagu dhaqaaqay ayuu ha markaa adu hawshiisaas ay ku dhacday waa ifraax waa la guursaday marka la hadana ifraax anagoon faraxsanayn milxiisinteedii baan ka mid noqday intaasun kuma eekaan muujinta jacaylka la rumaysan waayey ee waxa uu la ballamay inantii goor habeena ayay wada joogsadeen meel bannaana waxa uu la soo baxay makiinad ama sikiin waxa uu ku sarsaray gacantiisa iyadoo oo hor taagan oo waxa uu ku leeyahay waxa tahay marwada nin kale laakiin waan ku jecelahay ee ogow وانا كنت عليه وانا مقادة بيتري مركان كل وياه تبى ولي حندوني أنا كوعد يتعالق أنت إنك بدل مركان كده واحد عينا يعني ما نشيء حلي أصلا نقول ولا لأنه مرواتي يعني إننا كل ناس كده يعني صارنا يعني وحاصل لي ممكن مهمها لكن تعال كي ما دام مستحدوني أنا كوسي رمايو واحد عادي مركان يعني أنا توقعت مكينة قربان كبلاني gurigooda marka agtiisa ahayd makiinad baan soo qaatay xilli yar sakiin dabeedna markaasan xilli yar fiida oo yimi meel yar baan u istaagnay dabeedna iyadu markiiba kolley dhib bay dareemaysay oo dhibtii dhinacii jacaylkana dhibtiisii way dareemaysay waayahana dee way ku qasban tahay mid kale saddexaad baa jirtay oo dee anigana maanta dee waddanoo furan ma jirto dee intaasoo dhibaataa markii xalka lahaana xalkii anigaa dee ma garanaysaa go'aan qaldan qaatay wixii mushkiladaha baa idan dhakada ka saaran marka markii dib soo qaatay laakiin aniga waxa soo waxa iga muhiimsan inaan ku qanciyo inaan tahay jacayl bas inaan helo waxa iga muhiimsan in jacaylkaygu ogaato bas dabeedna markaa makiinada soo qaaday waxaan sameeyay markaas aan isugu soo hor istaagnay waxaan ku sida cadayntii jacaylka kadib cadayntii ayaan makiinada soo qaaday gacantaydan baan dee aan soo shaarka uga qaaday dabeedna makiinada gacanta ku sito iyadna halkan oo kale hortay taagatay aan aad saa ugu jarjaray ilaa xad baan saa ugu jarjaray dabeedna markaasay inanta wax samaysay oo oydii anuu runaantii wax yaroo damqashaa maan dareemin in yarna maan damqanin maan dareemin dabeedna aad dhiig badan baa yimi shanadeedii ba soo qaaday way igu duubtay dhiigga xididadan yar bahashaasoo dhan baa wadagoay shumad buu dhiighaynaya shumaddii baan isku sii yar duuduubay runtaa markaan arkay oohinteedii meeshii dee ina dhacdaba ay ku sigatay dee dumarkuna way iska qalbi jilicsayin ayaa waxaan ku sameeyey inaan kuraa iska tag shumaddii baan isku duuduubay anna waan soo dhaqaaqay markaan soo dhaqaaqay dee dhiiggii waa kana waxaasil bal haddaba bal dhiigga iska joojiyo iyadoo shaahmadoon dukaanka iibsado waan saaray marka shaayii madooba intii saaray waxaan sameeyey shalmadii baan ku yar xidhay wuu yahayn waaye markii dambe waxaa dhacay inaan dee sidiiba haddaba dhakhtaro aad tagtid dhakhtarkii waan ma garanaysaa dee waaban ka xishoonayaaba maalintii dambe aduu way soo qaraacay telefoonka waan ka qabtay wuxuu ii sheegay inuu jacaylku ii xaqiijinayo jacaylku ii qaba inuu ii xaqiijinayo kadibna waan u baxay sakiimaduu gacanta ku sitay gacantiisuu ku jarjaray kadibna aad baan yani uga murugooda waan ooyey shalmadaydii aan xidhnaa baan gacantayda ku
ku duubay gacantiisa kaga duubay. habeenkaasi maxamuud waxa xanuunka jacaylka uu wehelinayay damqashada xanuun kale ee jidhkiisa uu jarjaray. dhaktar jaamac maxamed cali oo haysta xarun caafimaad ayaa habeenkaasi daweeyey dildilaacyada uu dhiiggu ka burqanayay isagoo aan fiirin karaynin. in maxamuud toddobadii habeenada ka mid ah in uu ii yimid anigoo ah dhakhtarkii goobtan aynu hadda joogno ee aynu warfidiyeenkuna inala joogo anagoo joogna ninkaas oo dhaawacii markii aan ku yidhi dhaawacani siduu kuu gaadhay wuxuu markii hore iigu yidhi tuug baa i dishay. kabacdi annaga waxaa nagu waajibay horta qof kasta oo dhaawac qaba in aanu marka hore dhiigbaxa uu ku socdo qofkaas iyo dhibta haysata in aanu ka badbaadino. kabacdi markii aan dhiigbixii iyo arrintii joojiyey waxa aan weydiiyey in aan arrintani ahayn qof arrin lagugu dhuftay arrintan intan leeg dhibaatadeedu ee siday tahay wax ii sheeg. maxamuudow ay dhib badani ku taallo oo dhaawiciisu halis yahay kabacdi haddana niyaddiisu ay qoslayso ayaa waxaa dhacday markii uu dhiigbixii joogsaday ayuu ii sheegay arrintani siday ku dhacday. arrintii waxa ay noqotay in aan markii aan daraysinkii u sameeyo u dhayo gacanta ilaa harkaa inta u dhaxaysa waxaa ku yaalay ilaa iyo 33 nabar oo qaarkood isku darsameen. arrintaasina ay ahayd arrin ka dhalatay jacayl aawadii waxay dhibtaasi u gaadhay. kabacdi waan yaabay oo qofkan dhan ee qofkan bini'aadanka naftiisa u googoynaya arrinta waxa hayaa waa wax weyn. kabacdi aniga waxaa ila gudboon inaan horta naftan aan badbaadiyo. badbaadadeedii ilaahay baa lahaa, ilaahayna uu nagu gacan qabtay. waxay qaadanaysay intaa uu dhaawacaas ka gaadhay ilaa 27 qodob ay gaadhaysay anigoo u raali gelinaya dee ninkani dhibtan wuxuu u galay ayaa sidii aan u badbaadin lahaa aan idhi anigaa ku kafaalo qaadaya. haddii ilaahay yidhaahdo maanta laga bilaabana aniga ayaa dawada iyo wax walba kuu qoraya. waxaan markaa uu dawo ay socotay daweynteedii iyo daraysinkeedii arrintaa jacaylka ku timid oo ah in uu markii aan weydiiyey uu yidhi gabadh aan jeclaa oo markaa aan aada isku jeclayn ayaa laga guursaday. kabacdi arrintii markay sidaa tahay ayaan arrintan ku dhaqaaqay jacayl aawadii. arrintii markaa dee dadka qaarkood markay maqlaan ambase ay dee arrintaa dib u eegaan wax khatar ay ku noqonaysa. laakiin maxamuud anigoo aadna u aqaanayay markaan dabagalay arrin dhab ah ayay noqotay. maxamuud ilaahay uu nagu guuleeyey muddo bil iyo 10 cisho ayaan dhayiyey dawooyinkii siinayey ilaahay uu nagu beeyay. maxamuud waxa uu go'aansaday dhalandhoolka socdaal uu kaga hayaamayo magaaladii uu ku waayey gabadhii jacaylka ay wada abqaaleen. xagga ilaahay kama laakiin waxaan ku aragtiisu ka dhameysay madamaynana kulmi baa laga yaabaa. markaa waxaan anigu markaa go'aansaday inaan tago markaa waddanka maadaama dee jacaylkayga meeshan aan ku waayay bal inaan ka tago meel kale oo halkaygu dhawaa markaa inaan u tahriibo. runtii markaa waxaan go'aansaday inaan horta waddanka uun tahriib sax ama wax go'aan degdeg uma waxay qorsheynaysa laakiin inaan tahriibo. markii sidii baan ku tahriibay adoo ilaa 7 cisho meelaha kadib waan baxay. waxaan tegey wajaalan tegey xagga Ethiopia doonay markaa inaan u baxo kaado dee way dhalinyaro meesha joogtay war xaggaas waa adkaato in ciidamo marto markii liilma marto waxaan sida dabarkiisa ku noqonay Djibouti baan tegey. Djibouti markii aan tegeyna markaan wax yar joogay haddana waxaan sida war harkiisa unba horta igu darnayd inaan ku noqdo oo meeshaas ma igu darnayd. marka waxaan sameeyay inaan haddana fikiro tahriib kale
oo marka xagga Yemen iyo xaggaasaba niman iga sheekeeyeen aniguna tusmaysto qayrkay halkuu tegi tabaabashayste aniguna tusmaysto qayrkay halkuu tegi tabaabashayste ay taageeran lahayo arrintaydan kala tahay adaa tuursi karaaye waxaana ugu dambayn uu gaadhay dalka Sacuudi Arabia wallaahi dee nolol horta adag baa Sacuudiga ka bilaabantay markii ugu horreysay xuduudka saa u soo galay runtii waxyaabihii la yaabka lahaa ee jiray waxa ahayd in waqtiyada qaar dee ma numberkeedii iyo waxeedii iyo informationkeedii iyo waxeedii oo dhanba waan ka tegey laakiin waxa dhacday waxaan la soo hadli jiray dad kale asxaabteeda kuwaasaan ka wareysan jiray xaalkeeda ma fiican tahay ma wanaagsan tahay kuwa qoladaas in aad ula soo hadli jiray marmar baa jirtay markaan xilli aan odhan jiray ama telefoon igu yergeeya markaan saa xaaladeeda aan u yaabo marmar ay dhici jirtay inaan salaan layga gaarsiiyo laakiin aduu dee waxaan baa halkaas un dee waxaan baa aduu laakiin inaan is ilowsiiyo xaaladii oon aad isku ilowsiiyo midda kale aad waxaan u samayn jiray markii dambe waxaan markaa arkay xaaladeedu aad u adagtay quraankan aad u akhriyi jiray quraankan aad u qaybi jiray dibadna markii dambe mashquul badan baan iskaga jiray halkaasaan wax badan aan iskaga daweeyay jacaylkii waxoogaa silmalaha dee muddo kaga yara waxoogaa kolbaa nasiima dareemi jiro anigoo dee aad isaga mashquulnay waxa ugu badan aan aadka iska ilaalin jiray ama ugu dhibaatada badnaan waxay ahayd heesaha markan haddaan hees maqlo runtii maan adkaysan kari jirin iska daa Soomaaliga Carabigaasoo waxaan ku markaa waxoogaan ka aqaanay waan oogi jiray markaan dhageysto isla Sacuudiga ayuu ku guursaday gabadh kale maadaama ay Ifraaxay galbatay waxaan sameeyay inaan markaa inaan guursado aan xaas kale guursaday anigoo markaa dee level sad u iloodo aan markaa ka tanaasulay maadaama iyadna ay reer noqotay markaa reer baan noqday gabadh baan guursaday halkii أنا وكلا كبلاوي إذا معي البيت شري الكيبان نوشا كلا كبلاوي هوش من هالكا كجلاي وحوجا سلوسين بدن بجرتي إفراح يضو قبل كله هدنا كمو جورين كالجعل كايو قبتي محمود من تشرين مال أي كلا حريدو حساها تيو حيكون نوليدون حصوص وحل سمية هيسو يسوقان لجو عبري عشق لما حدوميي مصطفى أحمد دولار وحو سمية هيس ملهيدي اللحن كيد بقولي هاي كدبنا ويسقو قاضي وحنو عريه مركي قصة أي كوض الشيكايستين نينا صاحب هايين محمود ومركاسي هرجيسو كسقنا هايين كاس مركي قصة سليق شكي عدا ماتن كنت واحد قبتي لين حافظ إذا ما جرجيجا أنا قش شعورتي بدلن تاهي وتشوي ذيك لك بدليها مركي أنا جرجي تجي واحد دمعي أنا مقصدها بالوح كقرو أنا مركز شعلي أنا محقر قرو وهذا الشرالي أنا وحلا بورنمو وحسمايو مركز واحد دمعي أنا وح كقرو قصداس مركي أنا قصداس كده دمعي وح كقرو هبين كاس مران سمي dareen kan ku sameeyay run ahaantii maxamedow waxa dareen aniga igu cusub waxaan dareemayay inaan si dhaqso wax u sameeyo iyadoo ay igu adag tahay marka kale inaan si caadi wax u sameeyo waxaan kale dareemayay inaan sideedii hore si aan hawsha u dhameyn karo habeenkaas hees baan qoray heestaas markaan qoray habeenkii fanku waa heestii ugu horeysay aan qaaday ay noqotay heestaasi fankunu igu cusba markaa ninkii muusiga ama la xiriiray markaan heestaas ninkii muusiga la xiriiray subxaan waagaasa waan wuxuu wiila balamay waan tagay runtii heestaas anaan qofna kala tashan anaan garanayn ninkii qisada ku dhacday anaan garanayn inanta qisada ku dhacday ayaan heestaas intaan sameeyay aan la xameeyay ayaan duubay intan heestan aan sameeyay ama la xameeyay ama duubay ama aan tumiyay runtii waxaan ku jiray jawi kale jawi jacayl jawi dareen iyadoo intaas jirta markaan heestaa habeenkaas soo dhameeyay runtii
habeenkii dhan anaga dhegeysanaya waxaan u dhegeysanaya habeenkaas oo dhan si anigu waxaan aniga igu dhaceen oo kale yihiin runtii inankii baan u keenay heestii dhegeysan kooda wallaahi horta qof kastan heestaan dhegeysiyaaba isagoon qisada hore u arag ama qisada aan garanayn dareen ama joog kale waxaad arkaysa isagoo ku gamaya hees oo dhegeysanayo si dhow ugu dhegeysanayo adigu qisadii heestaas runtii habeenkaas midhaha aan sameeyey way socotay way baxday nin ka mida ninka imanka saaxiibkii ugu dhow ahaa markaas oo maxamed cabdiqaas dhaktar ahaa ayaa heestii qaaday oo heestii markuu uu sameeyey oo midhihii iyo laxankii iyo wixiiba dhameeyey aniga ayaa heestii qaaday inantii baan u geeyey waxaan iga soo codsaday inaan qaado maxamuud laftiisa oo markaas Sacuudiga joogay niyo ilaahay baan ku dhaariyay isagoo heestaa inantii u geey waayo cid kale u geynaysa ma jirto aniga ayaa inantii gurigeeda hayay oo u geeyey oo habeenkaa waxaan xasuustaa de kulley inkastoo de sheeko ay tahay qiso dhab ah oo u baahan in wixii jirayba dee sideeda loo sheego waxaan xasuustaa inay markay inanta heestii dhegeysatay inay aad ooyday oo muddo badan ay ilmeynaysay la rogay naftiiso qalbiga dhaawac weyn u geystay allah dhimbiishii jacaylka ku furay dhammaan waxiisa ruuxii ku dhibtooda abido dartaa dhimanaya adiga ruuxii ku dhibtooda abido dartaa dhimanaya adiga dhaqso loo daweeyaa dibyari loo urursamaada ruuxii ku dhibtooda abido dartaa dhimanaya adiga ruuxii ku dhibtooda abido dartaa dhimanaya adiga intaa dhaqso loo daweeyaa dibyari loo urursamaada maxamuud oo isna Sacuudiga jooga ayaa heestaasi loo geeyay heestii maalintii aan dhageystay runtii dee waxay igu noqotay qiiro badan dhowr saacadood baan ooyey baalkeere maxaa la yidhahdaa kliniskaas ay yaalay bogoskii ilmadiisan iskaga biinayay ayaan ku dhameeyey 7 sano kadib waxa uu helay war rajada soo nooleeyay oo sheegayay in Ifraax la dalaaqay oo ay kala tageen ninkii qabay isaguna waqtigaasi waxa uu ahaa kali joog ay kala socdeen haweenaydii Sacuudiga uu ku guursaday markaas uu ii keenay war fiican oo kale ah in gabadhii maanta madax banaantay ninkii ay kala tageen Hargeysa ay joogto arrinkeedu dee uu saayahay ka nambarkeedii barnaamijkeedii bartiiman dib iskaga soo xidhan marka horna dee jacaylku muu dhammaan laakiin anu mar walba waxaan isku dayay inaan hawshiisa iyo baddeeda iyo wixii aan ka fogaado dab sanadii hore aan xiriir iyo raadin sanadii dambe waska gooyay oo man xiriin jiray laakiin qalbigayga iyo maskaxdeeda waxa jiray sawiradeeda aan haysto ama aynkaasa ayaa jiray waxa mid kale oo iyadna wax jirtay halkan markii aan ka tagay wax jirtay garan aan ku sii sawirtay sawirkeeda sawirkeeda halkan igu sawirnaa dabadna garankaas waan xidhan jiray mar intii aan halkan joogo dhan waan xidhan jiray xataa habeenkii ku seexan jiray markii dambe taariibayna waxaan iyaanu kaalumine meel baan ku sii xafiday laakiin sawirro iyo barnaamijyo kale aan iskaga noolaan jiray wallaahi markaa kadib dee jacaylkii horta waan dib u soo galayba oo intii halkaa maalintii aan ka bilaabay baa dib weynagan badii haddana badii caasho ku soo noqday markaas waan soo xidhnay nambarkeeda waan helay waan soo xidhnay dee qadarrada ilaahayna way iska badan yihiin markaa waxaa dhacday inantii dib aan soo xidhiidhino kii waan kala tagnay qadarkii baana dhacay maxamuud lamaan garanay meelan kala xidhiidho waxaa abuurmay ididiilo cusub waxaana la go'aansaday in markan guntiga loo geejisto sidii la isu calfan lahaa markaas waan soo xidhnay nambarkeeda waan helay waan soo xidhnay dee qadarrada ilaahayna way iska badan yihiin markaa waxaa dhacday inantii dib aan soo xidhiidhino markaa ninaan saaxiib nahay oo isaguna markaa Hargeysa joogay ayaan la soo hadlay ninkii baan ku noo inanta waxaan doonayaa isagoo markaa xagga Sacuudiga u soo noqonay weliba taariikh soo noqonay inaan doonayaa soo kaxayso inankii markaa wuxuu yiri waa okay waa soo kaxaynayaa dabadna bal qadarka ilaahay may suurto gelin inay wanaag soo kaxeeyo
marka xilligaa oo yar xanuunsanaysay anna markaa intan aan kuuri yaroo lacag soo diray baan kuuri soo bax inankiina wataa soo bixi weydii markaas haddana mushkilad kale ay halkaa iga bilaabantay ilaan quusba ka gaadhay aan war maad laatan ilaahayba kuuma qorin marar badan oo waxaa jirta ka istakfurasoo nimala dimi baa wad gashay xilligaa dabeedna waxaa dhacday inaan dee waxoogaa maaragtay aan halkaas haddana hawl kale murugo kale aan dib u galay xilligaas dee waxaan ku aan markay waqtigiina soo bixi weyday inankiina keligii soo baxay aad anna waan uga xumaaday marka waxaan sameeyey hees markaa fanaankeena Mustafa oo heestii horena isagu abwaankeedii ahaa jacaylkiis ku keeneen ahaa inaan haddana hees anigu aan sameeyey anigu hees sameeyey marka anigoo dee cadhaysan baan sameeyey markaa heestii markaan sameeyey ayaanu inankii heestuna dee markaa waxaa ahayd heesta iska foorjaa qalbiga igama hayn laakiin dee cadho ayay iga keentay heestii markaa xilligaa waxay noqotay inaan kudha inankii Mustafa markuu heestii qaaday u gee haddaba ninka Mustafana uma geynayo maadaama anigu tii hore u geeyey wax isku soo celinaysay tan wax kala kaxaynaysa anigu ma geynayo anigana ninka waan kala tagnay kadibna rajadeydii baa soo noolaatay ifraax oo ogayd dhibaatada tahriibka ee uu mutay maxamuud waxay diiday inay iskuursadaan iyagoo kala jooga Sacuudiga iyo Hargeysa waxaanay go'aansatay inay dhadhamiso dhibka markeeda kadibna wuu la soo xiriiray wuxuu yiraan reerkiina ku weydiisto kadibna aniga diiday waxaan doonayaa markaa inaan dareemo dhibaatadu maray ee tahriibta ah ifraax walaal reerkii uu ka burburay ilaahay qadartiisa waxaanay kala tageen sawjkii markaa guursaday maalin ka mid ah dabeetana aniga ifraax saaran ifraaxood muddo in jeel laga soo daayay ay tiri waxaan ku go'aansaday si aan inaan ku yimaado ama aad timaado dabeetana maxamed kaalay buu yiri gabadhiisii iyo noloshii halkaas iyaduna dee marka horeba dee waxay dad maqaalfo iyo wanaag isku qabay jacaylkooda waa hal qalbiyo marka adigu dee jacaylkiiba labadoodiiba hafiyey oo jacaylkii gurigan rogayun baa kii kalena qayb ka ahaa baynu odhan karnaa dee inkastoo qadarka ilaahay meesha ku jiro oo dhismaha iyo burburka labaduba yihiin xalay xaqiisa suurtagalka dabeetana inankii iyo inantii wuxuu soo diray nin dadka kaxeeya marka wuxuu yiri inankaas ku soo kaxayn jidkiisa loo mariyo waxa isaga kaasoo lacag buu soo diray marka ifraax hawshaasi waa hakad baa yar galay oo meena suurta gelin maxamuud ifraax tuunkii berigii ay qaaday markay tiri aan israacna ma uu nakaxayn waayay oo kalaaba maxamuud galay marka wuxuu yiri dee way noloshii baa dee saas uu la waday oo inay nolosheeda aan burburiyo oo haddana jacayl kale iyo dam kale iyo dib kale aan galo dadana ifraax waxay qaadatay go'aanka ah inay maxamuud ka daba tagto ifraax waxaan ka mid ahaa dadkii aan bixiyey Sacuudiga ayay isugu tageen waxaana salka loo dhigay jacaylkii la hadimeeyay oo markani guuleystay horta waa batan Sacuudiga timi markay timi waxa dhacday inaan dee familygii ka doonto aan la hadlo reerkii oo sidaa dabadnaan la isku kaaysiyo halka dabadna ay dhibaatadii jacaylku ay ku dhamaato gadaadu tilmaantay waya dhibtii soo gabagabowda gadaadu tilmaantay waya dhibtii soo gabagabowda kugeeni wakaa samaade aroos laynoo gangaamay waxa la wada dhistay qoys kalgacal hadda iyagoo leh wiil iyo gabadh ayay ku wada nool yihiin Hargeysa waxaan ahayd nolosheeda markay ugu farxadda badnayd sidii baan ku noqonay family waxaan noo dhalatay inantayda nasiibada